Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan islaamaya Soomaaliya meel walba aad dunida ka joogtaan. Waxaa idin leeyahay maalin hadday inita maalinta inay wacnaato, habeen hadday inita haweenka inay wacnaado. Halka aad naga dhageysanaysaana waa Hidaaya Official. Maanta iyo barnaamijkeena muxuu ku saabsan yahay su'aalo diiniya ayuu ku saabsan yahay iyo jawaabahooda. Ha laga faa'iideysto insha Allahu tacaala. Su'aasha koowaad haddii aan u guda galo waxay tahay sheega magaca saxaabigii uu ku soo degay nabigeena sallallahu calayhi wasallam markuu ka soo hijrooday Maka ee uu Madiina imaaday. Jawaab: wuxuu ahaa Abu Ayyub al-Ansari. Su'aal: sheeg saxaabigii keenay fikradii ahayd in god la qodo dagaalkii Axzaab. Wuxuu ahaa Salmaan al-Farisi. Sheeg ninkii u baxay inuu nabigeena sallallahu calayhi wasallam soo dilo. Umayr binu Wahab ayaa la dhihi jiray. Waa kuma malagii waxyiga u keeni jiray nabigeena sallallahu calayhi wasallam. Waa malakul Jibriil. Sheeg dagaalkii uu ku geeriyooday Cabdullaahi binu Rawaaxa. Waa dagaalkii Mu'ta. Kumuu ahaa gabyaagii rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam. Wuxuu ahaa Xasaan binu Taabit. Yaa u geeyay warqadii uu Nabi Sulaymaan u diray Balqiis. Waxaa u geeyay Hudhud. Imisa sano ayay godka ku jireen asxaabul kahfi? Waxay ku jireen 309. Sheeg masjidkii ugu horeeyay uu dhisay Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam. Masjidul Quba. Imisa jeer ayaa lagu sheegay Qur'aanka kelimadda ama magaca Muhammad calayhi salaam? Jawaab: waxaa lagu sheegay 4 jeer oo keliya. Waa imisa xibnaha lagu sujuudo? 7 xibnood oo kala ah wejiga, 2 calaacalood, 2 jilbood iyo 2 lugood farahooda ayaa lagu sujuudaa. Sheeg saxaabigii dilay aabihii oo gaal ah dagaalkii Badar. Wuxuu ahaa Abu Cubayda Caamir binu Jaraax. Sheeg asxaabigii arkay Masiixul Dajaal. Jawaab: waa Tamiim binu Aws. Sheeg magaca dhabta ah ee saxaabiga weyn Abu Hurayra. Magaciisa la iska rabaa. Jawaab: waa Cabdiraxmaan binu Sakhar radiyallahu canhu. Sheeg magaca dhabta ah ee saxaabiga Abi Ayyub al-Ansari. Waxaa la oran jiray Khaalid binu Zayd. Sheeg saxaabiga keliya ee magaciisa lagu xusay Qur'aanka. Waa Sayd binu Xaarith. Sheeg saxaabigii geeridiisu ay 70,000 oo malag ay soo degeen.
wuxuu ahaa sacad binu caad. waxaad sheegtaa munaafiqii uu nabigeenu sallallahu calayhi wasallam yiri qofkii doonaya inuu shaydaan arko kaas ha eego acuudu billahi minash shaytaani rajiim. wuxuu ahaa nabtal binu acsam. intaas ayaan kusoo gabagabaneynaa su-aalaheenii iyo jawaabaheenii diiniga ahay. halaga faa'iideyso asxaabtiina uga faa'iideeya insha allahu tacaala. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.